saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kulan la qaatay aabaha dhalay gabadhii indhoolaha ahayd ee lagu eedeeyay inay isku qarxisay xarunta dowladda hoose ee Xamar sida ila wareedyo la socday dhacdadani ay sheegeen aabaha dhalay gabadhani lagu magacaabo Basiire Cabdi Maxamed ayaa booliska ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan xogta gabadhiisa iyo waxa uu kala socday inay ka tirsanayd al-shabaab aabaha dhalay gabadhani ayaa booliska u sheegay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay uusan waxba kala soconin xaaladda gabadhiisa isla markaana magaca Basiiro aan la dhihin oo ay magac kale u yaqaaneen waalidkeeda gabadhayda waxa iigu dambeysay dhowr sano ka hor mana ka warqaba xaaladeeda midda kale aniga gabadhayda magaceeda waa Maryama Cabdi Maxamed mana la dhaho Basiire ayuu yiri aabaha dhalay gabadha la sheegay inay isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen dad goobjoogyaal u ahaa kulankani yaanan waxba liiga weydiinin arrinta gabadhayda waayo markii aad qorateen ima sheegin anigana idinma keenin markii aad magaca ka bedelateena igalama tashan ayuu yiri aabaha dhalay gabadha aragga naafada ka ah ee lagu eedeeyay inay isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir weli waxaa socda baaritaano ay ciidanka booliska Soomaaliya ee ku aadan kiiska qaraxa 24kii bishani ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale oo uu ku jiro gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ilaa iyo hadda si dhab ah looma xaqiijin karo Basiire inay ahayd gabadhii ka dambeysay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaana suurtagal inay qayb ka ahayd dhibanayaasha waxaa jirta gabar kale oo la socotay oona la tuhunsan yahay isla markaana ilaa iyo hadda aanan la ogeyn halka ay ku sugan tahay booliskana ay raadinayaan